بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم waxaan rabaa inaan shirkeena jaraa'id uga hadalno baaq la xiriira dhinaca amniga oo ku socda dadka musharaxiinta ee imaanaya caasimadda oo doonaya inay helaan kuraasta. Waxaan ugu baaqaynaa ka hor intaysan imaanin inay la soo xiriiraan maamulka caasimadda si loo facilitate gareeyo hadday u baahan yihiin guri, hadday u baahan yihiin security, hadday u baahan yihiin soo dhaweyn, intaba maamulka ayaa u samayn doona insha Allah bil kariim. Waxaan ugu baaqaynaa intaysan imaanin inay soo hadlaan, dad soo dirsadaan, ay yimaadaan la soo xiriiraan maamulka. Ciddii aan sidaa yeelin oo iska timaada ama dhulka ku soo gasha ayagana waxa ka mamnuuca inay la yimaadaan wax qoray ah, wax ciidan ah. Maamulka caasimaddu ma ogola magaaladan in la keeno qoryo lagu doonayo in doorasho lagu raadinayo. Waxaan rabnaa dadka bulshada oo caasimadda inay soo dhaweeyaan ayaguna dadka walaalahooda oo kuraasta doonaya oo raba in ay meeshan kuraas ka helaan, in si hufan loogu adeego ayagoo faraxsan ay kuraas qaataan insha Allah bil kariim ninkii calaf u galo. Dadka guryaha kireysanaya ee raba inay guryaha kireystaan oo ganacsatadana waxaan ugu baaqaynaa inay guryahooda soo diiwaan geliyaan si mas'uuliyadda dadka guryaha degaya aan u ilaalino amnigooda iyo shaqaalaha u shaqeynaya iyo security-gooda in la soo diiwaan geliyaan ayagana ka codsanaynaa insha Allah bil kariim. Waxaan kaloo rabnaa inaan u sheegno dadka imaanaya oo musharaxiinta ah magaalada doorasho xalaal ah ayaan rabnaa inay ka dhacdo ayagoo faraxsan inay kuraas qaataanna waa jecelnahay. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa inay la shaqeeyaan maamulka, awaamiirtan ay u hoggaansamaan. Assalaamu calaykum.